sida aawadeed qaar badan oo yuhuudi ah oo Maryam u yimid oo arkay wuxuu sameeyey ayaa rumaystay. qaarkoodse way u tageen farisiintii oo waxay u sheegeen wuxuu Ciise sameeyey. sida aawadeed wadaadadii sare iyo farisiintii shir bay isugu yimaadeen oo yidhaahdeen, maxaynu samaynaa? waayo ninkuna calaamooyin badan wuu sameeyey. haddaynu sidaa u dayno dhammaan way rumaysan doonaan isaga, oo dadka Roomana way iman doonaan oo waxay qaadan doonaan meesheenna iyo qurunteenna. midkood Kayafas la odhan jiray oo wadaadka sare ahaa sanadaas wuxuu iyagii ku yidhi, waxba garan maysaan oo ka fiirsan maysaan inay idin roon tahay in nin kale ahuu dadku u dhinto oo aan qurunta oo dhamma lumin. waxa iskama odhan, laakiin isagoo ah wadaadka sare sanadaas wuxuu sii sheegay in Ciise qurunta uu dhiman doono. quruntii oo keliya uma aha, laakiin inuu mid keliya isugu soo ururiyo carruurtii Ilaah oo kala ficilsan. haddaba maalintaas wixii ka dambeeyey waxay ku tashadeen inay dilaan. sidaa daraaddeed mar dambe Ciise bayaan uma dhex marin yuhuudda. wuuse ka tegey meeshaas ilaa meel u dhoweyn cidlada, ilaa magaalo la yidhaahdo Efrayiim. halkaasuuna xertii la joogin. hadda ciidda yuhuudda ee kormaridda la yidhaahdaa waa dhoweyd. kuwo badanaa waxay u kaceen Yeruusaalem iyagoo dalka ka yimid ciiddii kormaridda horteed inay isdaahiriyaan. sidaa daraaddeed ayay Ciise doondooneen oo waxay isku yidhaahdeen, iyagoo macbudka dhex taagan maxay idinla tahay? ma inuusan ciidda imanayninba? wadaadadii sare iyo farisiintii waxay amar ku bixiyeen, hadduu qof ogaado meeshuu joogo waa inuu sheego, ha la qabteen.